qiyaastii 14% dadkii ka soo kabtay ama ka bogsooday cudurka coronavirus ee dalka Shiinaha ayaa mar kale cudurkii laga helay sida ay khubaradu ku waramayso waxaana soo baxday cabsi weyn oo mar kale ay dareemayaan dadweynaha dunida gaar ahaan waliba kuwa Shiinaha ku nool oo rajo wanaagsan maalmihii u dambeeyay dareemayay daraasad ayaa muujinaysa in 14% bukaanadii ka raystay ama ka caafimaaday cudurka coronavirus inuu mar kale ku soo baxay oo uu ku soo laba kacleeyay kadib markii ay dhamaysteen xitaa karantiilkii la saaray warkani wuxuu imanayaa iyadoo khubarada caafimaadku ay ka cabsi qabaan in Shiinaha uu ka dilaaco mar kale muujad rogaal celin ah oo cudurka coronavirus ah gaar ahaan dadka dibadaha ka soo laabanaya iyo dadka loo yaqaano sidayaasha aamusan ee cudurka qaba iyagoo aan wax astaamo ah laga helin ama aanay ka muuqan tusaale ahaan qandho qufac ama neefta oo yaraata ama qofka dhibta malaayiin ka tirsan dadka ku dhaqan gobolka Hubei oo ah halka uu ka dilaacay markii hore cudurkani asal ahaan ayaa usbuucan gudihiisa loo fasaxay inay gobolka ka tagi karaan kadib markii la qaaday xanimaadii saareed gobolkaas magaalooyin badan oo ka mid ah laakiinse rajadii ay qabeen dadkaasi oo usbuucan ay dareemeen ayaa mar kale cabsi laga muujiyay 24 saac la soo dhaafay markii la sheegay bukaano badan oo cudurkaas ka caafimaaday haddana inuu dib ugu soo laabtay tani waxay noqon kartaa mar kale masiibo aan loo maara helin oo niyad-jab ku ridaysa dhammaan bahda caafimaadka ee cudurkaasi dagaalka adag la gashay dhinaca kalena coronavirus cidna ma dhaafin ma jira dal aanu gaarin saacadihii ugu dambeeyayna waxa uu galay aqalka looga arrimiyo dalka Ingiriiska wuxuu sidoo kale horay u galay aqalka boqortooyada Ingiriiska ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa laga helay cudurka coronavirus. I've developed mild symptoms of the coronavirus, that's to say a temperature and a persistent cough. Boris Johnson oo 55 jir ah ayaa ku doodaya in xaaladiisu ay fududahay balse xaalkiisa uu la socdo oo si gaar ah uu uga warhayo xogayaha caafimaadka Chris Whitty ninka la yiraahdo waxa uu sheegay inuu haatan iskarantiilay balse uu dalka ka hogaamin doono muuqaal toos ah si loo wado dagaalka caabuqa corona ee isagii laftarkiisaba ku habsaday isagoo hadlaya waxa uu yiri wada jir ayaan kaga adkaan doonaa gurigaaga joog oo naf badbaadi waxana uu arintan uu soo dhigay muuqaal kooban oo arintaasi kaga hadlayay bartiisa Twitterka ra'iisul wasaare Boris Johnson Downing Street ayaa sheegtay in Mr Johnson la baaro uu ku taliyay Professor Chris Whitty kadib markii lagu arkay astaamo sahlan maalmadii Khamiista ahaydna ay baareen howlwadeenada caafimaadka ee NHS